عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما تاي تاريخ ما ركتي شن تاي بشي كوي تونات أي سعادة تاي ما ركتي لحدي يلا باتن مريد هلكن waxaa ku jira عبد الوهاب oo nin aqoonyahan leh oo ku nool maaragtay Canada Toronto kolka Jibtok mulkiilihii Jibtok عبد الوهاب soo dhow محمد سلطان مارك واندوح maanta waxaan ka wareysanayaa qisad maaragtay xalay oo dhan igu soo duureysay oo Axmed Gurey ayaan taalo u waxaynayna abtiyaasheen hay leeyihiin de qisadan garan waayay ani waxa la igu soo korey Axmed Gurey nin Ciisa inuu ahaa qisadan xagee ka timid ma ku qabso ku qadimaysidii la ogaaba wuxuu meerku wado warun weeyaan waa ku qabso ku qadimaysid weeyaan ninka meerka magaalada Boorama loo doortay ninkaasi waa nin cusriya weeyaan run ahaantii arrimaha baltog TikTok keenaya maaragtay taariikhda marka taalo la sameeyay inay dawladuhu ka baaritaan sameeyaan oo loo wada fadhiisto waxaan ognahay maaragtay Axmed Gurey inuu nin Ciisa yahay cadeynteedii baan haynaa ha adiga de kala sheekaysta ayaamo hore oo iga tiri maaragtay jaraa'id tukriya qoray oo qisada adiga maaragtay ninka wax garanaya wax la weydiiyaa horaan ku weydiiyay oo wadiga sheekaysay halku ka soo jeed maxaad ka haysaa taariikh adigu Axmed Gurey warun weeyaan Axmed Gurey wuxuu ku dhashay markii ugu horeysay magaalada Jaldeysa waxa iska dhalay Ciisa iyo qolada la yiraahdo maaragtay Arabka soo jeeto oo Orgobal la yiraahdo ayaa iska dhashay isla markaasina wuxuu ku dhashay magaalada maaragtay Jaldeysa aan diradaba aan waxba ka dheereen dabadeed wuxuu ka noqday Zaylac buu ka noqday amiirkii maaragtay Zaylac maamulayay oo maaragtay the king of Zaylac buu noqday dabadeedna dagaalada wuxuu ka galay maaragtay intuu dhaxaysay dhulkan Ciisuhu dago ee maaragtay Asbuli iyo Caydoorayntii ugu dhaxaysay waa meeshuu ku dhiman gaaray ee ugu horeyntii maaragtay xamashido ay ku soo weerartay dariiqadaasi marka la raaco meeshuu ku dhashay meeshuu boqorka ka ahaa meelihii dagaal ka galay iyo dhulka aan maanta afartaan isku haysanay ilaa ma Candhufa eriyadaas oo dhan buu dagaal ka galay dabadeed xuduudda xamashida ayaa la galo waxa laga gaaray ilaa ma meesha la yiraahdo Bahardar waa Lektana meesha la gaaray dhulka Arab xaaradu ay degto ayuu ku dhinto nin Portugiisa ku dilo hub culus oo keenay maaragtay xamashidii markaasi cadeyntii oo dhan baan haynaa Turkiga wax ka qoray Arabta wax ka qortay Yamani baa wax ka qortay isla markaasina maaragtay waa la hayaa oo maaragtay marka taariikhda la baarayo dadka archaeologa ee maaragtay Egyptologa ee maaragtay lafaha iyo waxa soo dhambaaraya waxay sameeyaan wax la yiraahdo raadraac Ciisu raadraac bay sameeyeen nin aadan balalo la yiraahdo oo wasiir ahaan jiray iyo koox iyo ninka la yiraahdo Abdullah Haji ayaa qoray maaragtay muddahaatan laga joogo 10 sano in uu maaragtay Axmed Gurey ahaa nin Ciisa ilaa Harar baa la tagay ilaa Zaylac baa la tagay horta Zaylacda lagu sheegay waa Djibouti oo soo guurtay waa Zaylac oo Djibouti oo soo guurtay marka qoraaladii oo dhan baa la hayaayo maaragtay la baarayo maaragtay dadkii taariikhdii hore ay ka tageen ma sha Allah maxaa uga baay maaragtay in dadkooga inay sheegtaan abtiyaasheen ku qadimaysideen qolaan ku ogeyn oo maaragtay ninkan meerka waa asxaab TikTok baa leeyahay ninkan duqa magaalada Boorama ma shaqadii TikTok ayuu la yimiday waxaan halkan la yimiday aad iyo aad waxa weeyaan nin dawladda u shaqeeyaan moodayna waa nin qabiil u shaqeeya run ahaantii nunu qalmana maaha meerka magaalada dadka noocaasi ee maaragtay cadiifada iyo laablakaale ee maaragtay waxyaabaha TikTok ka socda dawladda maaragtay ku orkacsanaya kursiga wahayo wax maaragtay mas'uuliyad loo dhiibo ma waxaan baa ku diraya dhamaan beesha Ciise ee maaragtay qurba joogta inta gudaha joogta in shir degdeg ah la isugu yimaado oo taaladii Axmed Gurey aan ka sameeyno maaragtay magaalada Zaylac ninkaas nin Ciise ahaa taariikhda la xadaayo markii ugu horeysay maaha markaasi waxa la leeyahay maaragtay aan leenahay shir degdeg ah in la isugu yimaado dhamaan beelaha Ciise ee maaragtay maanta waxaan la hadlay magaalada Diradhabe ogaaska ballan baan leenahay dabadeedna maaragtay arintaasi in la dhagax dhigo magaalada Zaylac maaragtay Axmed Gurey wataan ugu baaqayo ummadda maaragtay beelaha Ciise may anigu
anigu maaragtay zaylac maaragtay bisha 15 arrimo waaweyn oo haddeed maaragtay been fakatay run baa la moodaa oo wixii maaragtay abiye kolku seexdo wuxuu ku hawaawiyay ayuu baarlamaanka Itoobiya ka sheegaa waa tii oo kale oo taana waan kula ogaa oo maaragtay dad waxaa jirta halkan de kama sheegaye arintaas sheegaysid zaylac maaragtay cali axmed gurey taala laga waxaynayay bisha 5 wax la sheegay ku jirtay waxaan arkayay nin maaragtay Muuse la yiraahdo oo suldaan isku sheega oo shalay toole ciyaalkii tiktokerada soo raacay ayaan ka arkay isaga afar kale meeshan baan ka dhisay taaladii axmed gurey lahaa ma foostadii maaragtay tiktokeradii gabadhii lacagta ku rursanaysay ee share out ku rursanaysay ayaa halkan loo soo jeediyay ayay kula taan u malayn bal ka war arinta ninkaasi maaragtay ekol Nasir lahaa Muuse markuu ugu horeysay markuu Djibouti yimid nin wardiiqo yeesifa uu qortay warqadaha uu ku qaatay dabadeedna maaragtay ekol Nasir waa laga qabalo waa loo qaban qaabiyo oday kartay ka gali jiray baa maaragtay oo iyo arintaasi ka caawiyay dabadeedna maaragtay xaggaasi de abaalkii maanta inuu oo dadka Ciise kula soo jeesto wax laga xumaado ta kale de waa nin in abti loo yahay oo Ciise abti yahay oo maaragtay abti loo yahay kolkaasi shalayna maaragtay han noolaada in Cumar buu lahaa oo waa la soo dhigay kolba sidoo doono laakiin isagu waa ara ka kacday suldaanka in afayeenka suldaanka Gadabursi ugaaska Gadabursi buu ahaa oo waa laga tuuray kursiga laga tuuray ayuu tiktokerada raacay laakiin imika ku qadimayside waa arintan maaragtay Oromaale daradaba ee maaragtay dadkii islaamihii oo dhan hay soo wala galayaan tiktok Oromo kolkaasi arinta maxaad ka leedahay arinta kalena horta mid baa jirto oo maaragtay waxa la yiraahdaa afmishaar dhaxalka aabaha inuu qaato xulama qofku hadduu ka hadal badan yahay oo hadalka beenta ku celceliyo generationka cusub ee maaragtay maanta yaryar ee naga yaryar marka hadalka beenta lagu celceliyo resource socioga ay maaragtay ay ka maqlaan way iska rumaysanayaan inagu waxaan jecelnahay wixii been la sheego ee maaragtay taariikhda maaragtay marin habaabinaya inaan ka jawaabno ummadeena iyo taariikhdeena aanu sheegno taasaan maaragtay anagu wax afka laga sheegto ma hayno wax qoraala iyaan haynay oo maaragtay black and white oo warqadaha ku qoran oo buugaag hore la qoray iyaan soo hordhigaynaa taariikhda Zaylac iyo taariikhda Diradhabe iyo taariikhda maaragtay Axmed Gurey ما شاء الله laakiin maanta ciisihii in 7 dadkii maaragtay North America tagay ubadkoogii maanta waa imsajir waa 40 way dhaafeen kolka aqoonna way leeyihiin tan kale social media ayay hadii wax laga hadli waayo dadkii de been fakatay run baa la moodaa maxaad ku waaninaysaa dadka maaragtay naga dhashay ee wax bartay ee adduunka dacaladeeda jooga waxa weeyaan imika bariyahan dambe waxa dhacday ku qabso ku qadimayside iyo taariikh la marin habaabiyo waana ka arkayna Zaylac ragan reebtigeena inay iska sheeganayaan run ahaantiina marka taariikhda la baaro meel alla meel ka soo galayaan ma jirto ingiriiska ka qorayo ku sheegay Ciise faransiiska ka qorayo ku sheegay Ciise turkida ka qorto ku sheegtay Ciise oo maaragtay buugaag badan oo under the flag la yiraahdo oo nin ingiriis oo qoray buug kale qor maaragtay oo qorayna Richard Burton oo qoray oo the first foot step la yiraahdo oo ka qoray maaragtay Zaylac iyo inta guban oo dhan oo Ciise ku sheegay waxaan haynaa taariikhdii maaragtay ingiriisku qoray oo ilaa ma xoolihii buu tiri ingiriisku iska daadaday xoolaha sida loo kala xoolo badan yahay xitaa uu qoray ingiriisku markay Ciisaha guban jooga waxay ka tira badnaayeen Ciisaha Djibouti jooga abtiyaasheen waxay sheegtaan maaragtay dadka ugu aqoon badan aqoontii ma waxay noqotay ku qabsi ku qadimaysidii inakoo respectaynayna abtiyaasheen maxaad ku waaninaysaa waxyaabaha beenta fukatay bay ka mid tahay oo aqoontu yani 3 milyan oo magaalada Muqdisho ku nool lagama aqoon badnaan karayo dad 1 milyan gaari oo Djibouti kuna lagama aqoon badnaan karayo yani iyagu waxay iska dhigeen dadka kale inay iskuulada ka wada saaqideen oo iyagu ay wax barteen aqoontu waxay keentaa ninka Gaarisa jooga ee Kenya jooga ninka Addis Ababa jooga ninka Djibouti jooga inuu ku soo shaqo doonto ka xadaarad badan tahay aqoonta ninka Boorama jooga ee Gadabursi maanta wuxuu ka fikiraa inuu tago Djibouti uu ka shaqaysto amba Addis Ababa tago ka shaqaysto amba Hargeysa uu tago amba Muqdisho uu tago marka
markaasi aqoonta la sheeganaya anu aan garan waayey aqoontu xadaarad bay keentaa ilbaxnimo bay keentaa magaalada Boorama male radio Boorama wax la yiraahdo TV Boorama male tareeno socdo male aqoontu waxay keentaa maaragtay xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dawo in maaragtay dhakhaatiirtan la tagayo Yurub iyo dhulka la iska soo daweynayo in Boorama loo doonto maaragtay dadkii tacliinta badnaa baan dhulkooda isku soo daweynayna in la yiraahdo ay aqoontu keentaa aqoontu waxay keentaa maaragtay xadaarad aad kaga horeysid dhismaha iyo wax walba markaasi aqoontu maaragtay la sheeganayo anu aan fahmi waayo maaragtay maadaama oo dhalinyartii Boorama ay tahriibayso taa aqoon lama yiraahdo ما شاء الله ما شاء الله إلهي مسكحدا كودايو كاسوحوها عبد الوهاب وملكيلها جبت توغله wax badan ayuu inala wadaadi doonaa haday tahay abtiyaashi haday tahay tolki haday tahay Soomaali qofku maaragtay aqoontu waa maaragtay waa sharaf lagu hayo lugaha dhulka lagu hayo oo been laga sheegin taariikhda inta dib wala kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Abdi Wahab